soo dhawaada waa mar kale barnaamij kale mar haddaad aragtaan anigoo oo soo galay live wax war cusub ayaa jira warkan ayaa waxa uu ku saabsan yahay arrinka dadka green cardka qaatay oo soo galay dalkan xilligii uu joogay madaxweyne Joe Biden 2021 ilaa 2025 dadkii soo galay oo sharciyada la siiyay ayaa waxa ka daba imaaday oo la raba in ka daba imaadaan maamulkan hadda jooga madaxweyne Trump maamulkan ayaa waxa uu sheegay in uu rabo in dib u eegis lagu sameeyo green card kasto ama qof kasta oo qaxootiya ama asayli ah oo green card la siiyay in dib u eegis lagu sameeyo dibna looga qaado interview so qof kasta oo green card qaatay ama soo galay dalkan qaxootinimo ha ku soo galo asylum ha ku soo galo ama ingilidoon ha ku soo galo ama si kaleba ha loo qaabilo darbi ka boodba ha ahaadee qof kasta oo green card qaatay waa laga daba tegayaa bay yiraahdeen waxaana haddeer ay qiyaasayaan horta maamulkan sidiisaba markii uu imaaday wuxuu joojiyay dadkii qaxootiga ahaa oo la qaabilayay kuwii inta joogayna shaqo ayuu ka daba bilaabay marka dadkan waxa ay sheegeen in laga daba tegi doono dadka green cardka qaatay 2021 ilaa 2025 inta u dhaxaysa 4 sano oo Biden uu joogay dadka green cardka qaatay waa laga daba imaanaya bay yiraahdeen warqad memo ah oo ay isu gudbiyeen USCIS ta iyo qolyahan madaxweyne Trump maamulkiisa hadda horboodayo ayaa waxa soo helay Newsweek iyo waxa soo helay AP warqadan ayaa waxay sheegaysaa in qof walbo oo waxaana oo qaatay green card 4 sano la rabo in dib interview looga qaado si loo ogaado bay yiraahdeen in lagala noqdo iyo in kale waxa kamid ah dadka hata already green cardka qaatay oo helay waxa ay sheegeen Reuters ay warinaysaa 233,000 oo qof oo qaxootiya in la qaabilay 2021 ilaa 2025 inta u dhaxaysay labadaas markas 233,000 oo u qalanta ama u dhigantaba quarter million rubuc milyan u dhiganta ayaa waxa la rabaa in caseskoda dib inta loo furo interview dib looga qaado dib loo wareysto oo sheekadooda verin cusub lagu sameeyo oo baaritaan haddeer loogu dhaqaaqo dad fara badan ayaa arrinkan ka soo horjeeda hase yeeshee waxa madaxweynaha uu ku adkaysanaya iyo maamulka Homeland Security-ga waxay leeyihiin waxa jiro oo laga yaabaa inay dadkan si sharci darro ah sharciga ku qaateen in la boobsiis ba maamulkii hore uu wax ku bixinayay shaqada Biden administration uu hayay waxay ahayd bay yiraahdeen in la boobsiyo in la qaabilo dadka soo galayo ama xuduudda Mexico darbiga ka soo boodaan ama dad qaxooti ahaan oo refugee lagu keenay ha ahaadaan ama dad haba ahaadaan si kale lagu keenay dad green card qaadatay 4 sano gudahooda waxa lagu bilaabayaa in dib lagu wareysto oo si fiican baaritaan lagu sameeyo marka sida sharcigaas ka taqaanaan dalka Mareykanka sharciga u yaala waxa weeye qofka markii uu qaxooti ahaan ku soo galo refugee uu ku soo galo waxa dhacdo badanaa in sanad kadib markaad green card haysatay I-94 ka aad apply gareysid green cardka waagaas marka waxay sheegayaan maamulkan uu ku andacoonaya Tricia McLaughlin gabadha la yiraahdo ayaa Newsweek waxay u sheegtay 4 sano oo isku xigto in la boobsiinayay iyada oo numberka laga raacayay in baaritaan fiican lagu sameeyo qoftan ayaa waxay sheegaysaa in qaxootiyadan la qaabilay xilligii Biden uu joogay ay ka yimaadeen wadamo gangs ay ka jiraan wadamo ay ka jiraan maaragtay amni xumo iyo argagixiso iyo waxyaabo noocaas ah so dadkaas si fiican looma baarin bay leedahay ama ay ku doodaysaa Tricia McLaughlin iyadu waxa ay u shaqaysaa oo assistant u tahay secretary Homeland Security-ga bay u shaqaysaa marka waxay leedahay waxaan qaadi doonaa corrective action talaabo aan dib ugu saxayno wixii dhacay dadka hata qaatay green cardka oo dalkan jooga ayaga naftooda waxa lagu sameyn doonaa baaritaan hor leh iyo waxaana dhici doonta in dib maaragtay hata dad markiis lagala noqdo
haddii marka meesha muhiimka waa tanaa haddii waxay yidhaahdeen qofka green card uu qaatay marka baaritaan lagu sameeyo oo interview la mariyo cusubna ogaadaan inuu si qalada ku qaatay waxay yidhahdeen wax appeal ah oo aan ka ogol lahay oo raacfaana aad ka qaadan karto go'aanka annaga aan qaadano ma jiro marka maadaama arrinkan appeal uusan lahayn kayskaaga wuxuu noqon doonaa bay yidhaahdeen in si degdeg ah lagugu xukumo in dalka lagaaga saaro marka arrinkaas ka saaridda ah marka ay timaado appealna aadan lahayn oo aad raacfaan qaadan karin oo go'aankaas aadan ka hadli karin waxaa kayskaaga aad ku present garayn doontaa oo aad ku sheegan doontaa waxa aad qabtid maxkamadda dhegaysan doonta arrinkan tarxiilkaaga so haddii immediate removal lagu diyaariyo maxkamadda ayaad ka horgeysan doontaa laakiin go'aanka iyaga ay qaateen oo ay ku heleen markay baaritaan sameeyeen kadib ay ku heleen in aad si saxa ku qaadan green cardkan arrinkaas isaga ah waxay yidhaahdeen maxkamadda aad horteeda ka sheegan doontaa arrinkaas naftiisa war baan idinka hayaa duulaha idmo arrinka maxkamadaha iyo maanta xukun ka soo baxay maxkamadda racfaanka ee Washington DC oo ku saabsan arrimaha soo galootiga arrinkaas naftiisa war baan idinka hayaa laakiin right now hadeer waxa isku hardinayo maamulka qorshayaalkaas dadka green cardka haystay 233,000 oo qof oo u dhiganta baan idin iri quarter million ama rubuc milyan qof oo green card qaadatay 4 sano ayaa la rabaa in dib loogu noqdo kaysaskooda si loo ogaado arrinkan isaga ah si loo ogaado marka dadka ka hadlayo waxaa ka mid ah Human Rights First qolo la yiraahdo ninka xukuma Uzra Zeya arrinkan ayuu ka hadlay policygan wuxuu leeyahay waa waqti lumis waa jiid aan ku jiide in kaysaskan dib loogu noqdo lacag ayaa meeshaas ku lumaysa waqti ayaa ku lumaayo laakiin maamulka ayaa isagu wuxuu ku adkaysanaya arrinkan in uu wixii qaldamay dib loo saxo maadaama bay sheegayaan dadka horay u soo qaatay green cardka laga yaabo in si qaldan ay ku qaateen waxa kale oo isna ka hadlay World Relief statement ayuu ka soo saaray dadka qaxootiyada u dooda arrimahooda badanaa wuxuu sheegay qofkan Mile Green baa la yiraahdaa waa president madaxweynaha iyo CEO-ga of World Relief waa agency u dooda arrimaha qaxootiga agency-gan ayaa waxa isagana uu ku doodaya oo sheegaya in qaxootiga marka la keenayo dalka Mareykanka verin xoog leh ama baaritaan la soo mariyo qof kasto dalkii uu ka soo dhoofayay oo uu qaxootiga ku ahaa interview looga qaaday baaritaan lagu sameeyay maartay faraha laga qaaday sawirro laga soo qaaday dad marka dad diyaarsan in dalkan la keenay bay iyagana ku doodayaan marka haddii ay bilaabato in dib interview looga qaado dadkan iyaga oo dalka Mareykanka already jooga oo green card qaatay arrinkan arrin wuxuu keeni karaa in dad sharci u lahaa oo sharciyadii buuxiyay in laga qaato maartay green cardka oo ay maartay arrinkan loophole kan ay jiq ku noqoto oo ay galaan marka arrimahan waxaa ku xiga doona baa la yiri talaabadan hadeer waxaa ka wada hadlayo USCIS United States Citizenship and Immigration Services iyo waxa oo iyadu ninka xukume Mr. Edlow uu taageersan yahay go'aanka dawladda iyo maamulkaba uu taageersan yahay arrinkaas marka wax ka wada hadli doono qoladaas iyadu process garaysa application kasto oo ku saabsan arrimaha immigrationka iyo waxa ka wada hadlayo maamulka iyo Homeland Security-ga ayaa ka wada hadli doono marka qodobkaas waa qodobkaas dadkii green cardka qaatay 2021 ilaa 2025 xilligii Biden era waxaa la sameyn doonaa baa la yiri in laga daba imaado dib loo mariyo interview arrimahan ogaada haddii interview hadda lagugu yeero adoo green card haysto waxaa laga yaabaa go'aan in laga gaaro degdeg ah go'aanka haddii laga gaarana immediate removal baa lagu sameynaya marka immediate removal marka lagu sameeyo go'aanka uu gaaro qofkaas interviewga ka qaaday oo wareysiga kula yeeshay appeal ma laha bay yiraahdeen maamulkan marka arrinkan waa la fiirin doonaa wixii ka soo kordha insha Allah ta'ala qodobkaas halkaas aan kaga tagayna qodobka kale oo aan idin hayay oo aan hadda idin sheegayo waxa waaye maanta waxa maxkamadda racfaanka
dowladda federaalka ah especially maxkamadda ku taala Washington DC appeals court waa federal appeals court badana maxkamadda racfaanka federaalka ah waxaa codeeya ama jaajaskeeda ay yihiin 3 so 2 ilaa 1 baa waxay ugu codeeyeen arrin uu rabay maamulka madaxweyne Trump taas oo ahayd in dadka marka la tarxiilayo ama maxkamadda hoose federaalka ah ee dalka Mareykanka ee xagga immigrationka go'aanka ay gaarto si immediately ah in qofka loo tarxiilo isaga oo aan chance kale ama appeal ama chance aan la siinin arrinkan isaga ah maxkamad hore oo district court oo federal ah ayaa ka hor istaagtay maamulka oo ku qasabtay in qofka la siiyo due process waxa la yiraahdo ama maxkamadda in la soo mariyo oo qofka inta la iska qaado immediately aan la iska sii tarxiili karin dadka sharcigaas marka hore wuu jiray dalka Mareykanka waxaana uu qabanayay qofka borderka ama xuduudda lagu qabto xuduudda aageeda qofka lagu qabto immediately way tarxiili kareen sidaas markaas la mid ah madaxweynaha dalka Mareykanka hadda Donald Trump ayaa wuxuu isagu go'aansaday in uu kordhiyo oo uu expand gareeyo sharcigaas oo ka dhigo qof kasta oo darbiga ka soo booday laakiin 2 sano ka yar dalka Mareykanka dhex joogay inay immediately isagoo aan maxkamad la marinin la tarxiili doono marka maxkamaddii hore ee federaalka ahayd oo baa ka hortimi oo district courtiga hore marka wuxuu aaday court of appealka ama maxkamadda wuxuu la aaday madaxweynaha maxkamadda racfaanka federaalka ah taasoo ku taala Washington DC arrinka isaga marka waxaa maanta ka soo noqday maxkamaddii go'aan bay soo saartay go'aankaasna waxay ku sheegtay inay maxkamadda hoose oo iyada ka hooseysay ay go'aanka ku raacsan tahay dadka inaan la iska tarxiili karin qofka inaan la iska go'aamin karin inuu 2 sano ka yar dalka joogay weli qofka lagu qabto xuduudda waa la tarxiili karaa bay yiraahdeen oo arrinkaas iyaga kama soo horjeensanayna bay yiraahdeen hase yeeshee dadka dalka Mareykanka si dhex joogay oo 2 sano ama 2 sano ka yar joogay oo uu rabay madaxweynaha in uu hal mar go'aan intuu ka qaato uu dhaho qofkan hadduu gudaha u soo galo dalka oo xuduudda uusan u dhoweyn 2 sano ka yarna uu joogay in hore laga tuuro la buud gareeyo go'aankaas ayuu rabay madaxweynaha in uu meel mariyo maxkamadda tii hoosena way ka diiday tii hadeer court of appealka oo racfaanka oo ku taala Washington DC-na maanta 2 iyo 1 bay u codeeyeen labada judge oo actually u codeysay in case-kan maxkamadda hoose lagu raaco waa 2 judge oo ay soo magacaabeen madaxweynayaal dimuqraadi ah baa la yiri soo iyagu naftooda xisbiga waxa laga yaabaa inay dimuqraadiga ka soo jeedaan hase yeeshee arrinkan ay u arkeen arrin aan hadeer munaasib ahayn in qofka hadiiba loo maleeyo inuu 2 sano ka yar joogay la tuuro oo la tarxiilo si immediately ah soo sharcigan hore u jiray xuduudda aageeda waa in laga qabtaa si lagu tarxiilo adoo aan maxkamadda xaragu marinin arrinkan marka in gudaha dalka loo soo balaariyo ayuu ahaa ujeedka arrinkanna maanta maxkamaddaas way ka hortimi marka haddii aan idin soo recap gareeyo ama dib idinku soo celiyo dadka green cardka qaatay 2021 ilaa 2025 inta u dhaxayso 4 sano oo Joe Biden uu madaxweyne ahaa waxaa dib loo fiirin doonaa applicationadoodii haddii ay go'aamiyaan maamulkan in si qalada aad u qaadatay green cardkana waxaa dhici doonta in si adoo aan appeal hataa haysan sharcigana lagaala noqdo immediate removal ama tarxiil degdeg ahna lagu qoro marka tarxiilkaas degdegta ah qoritaankiisaas waa anaga hadda ka soo hadalnay maxkamadda Washington DC oo maxkamadda appealka ah oo maxkamadda racfaanka go'aankaas ay ka gaartay so weli still chance baa helaysaa maxkamadda aad isku difaacdo oo aad kaga hortagto tarxiilkan lagu qoray laakiin waxa sheegayaan in maxkamadda isku difaaci karto laakiin banaanka uusan kaaga banaanayn go'aanka ay qaateen maamulka markii interview lagu sameeyo maanta waxaan arkayay yar waxaa jiro Soomaali ah oo Minnesota jooga I think Cabdiqafaar in la dhaho oo lawyer ah oo xagga arrimaha immigrationka iyo waxyaabahaas maartay Facebookiisan haya wuxuu ku soo qoray
wuxuu ku soo qoray haddii ay ICE ku yeerto ama qoladan Immigration and Customs Enforcement ay ku yeeraan ama green card haysatay ama sharciga yar aad haysatay oo ay rabaan inay hadda exactly programka aan ka hadlayno ay rabaan inay interview kula yeeshaan adiga oo aan lawyer wadin buu soo qoray ninkaas hala hadlin. So insha Allah ta'ala we will see inaan heli karno programkan aan soo gelin karno isaga naftiisa, laakiin arrinkaas ayuu soo qoray waxa isku daydaa buu yiri inaad lawyer immigration ah horay u wadato si interviewga kaliya aan lagaaga qaadin. marka arrinkaas ayaa maartay haddana maamulka ka soo kordhay mar labaad iyo mar saddexaadba waa isdaba socdaan arrimaha faraha badan oo ku saabsan xagga immigrationka iyo in maamulkan uu isku dayayo inuu dadka uu buudgareeyo dalka uu ka saaro. soo arki doonaa insha Allah ta'ala wixii kale oo ka soo kordha. waa mahadsantihiin dhammaantiin inta igala soo qayb gashay barnaamijkan. insha Allah intaan barnaamij kale ku kulmi doono waan idin salaamayaa. wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.